waxaa maanta magaalada Buuhoodle lagu qabtay kulan lagu taageerayay dhamaystirka golaha wasiirada cusub ee maamulka Khaatumo. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka, waxgaradka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle. waxaana si weyn looga hadlay xaaladaha maamulka Khaatumo State iyo waliba sidoo kale maamulada dhinacyada ka xiga ee Puntland iyo Somaliland. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka Khaatumo Maxamuud Cali Faarax ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta, wuxuuna sheegay in kulanku yahay mid lagu taageerayo dhamaystirka golaha wasiirada cusub ee maamulka Khaatumo. waxaan halkan aynu isugu nimid waa shir ku saabsan wacyigelin aynu wacyigelinayno dadka reer Khaatumo iyo dadka gobolkan Caynba aynu wacyigelin guud aynu u siinayno. waa shir aynu ku taageerayno dhismaha golaha wasaaradda ee la dhamaystiray Khaatumo State of Somalia. intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi si wada jira bulshada ugula hadlay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee maamulka Khaatumo Cabdirashiid Cawil Cabdi Hiirad, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada Xamdu Cabdullaahi Xamdi Qaran, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Faarax Maxamed Canshuur, wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Zaynab Axmed Muuse iyo waliba sidoo kale xildhibaan Faadumo Ismaaciil Geelle oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka Khaatumo State of Somalia. 2014 waxa adduunka oo dhan mamnuuc ka ah ama ay ka baxeen waxa weeye in gobernatoore u dhashay magaalada ama wasiir u dhashay magaalada in magaalo kale laga soo magacaabo. waxyaalaha ay Khaatumo State of Somalia ka dhalatay waxaa ka mid ah in aan magaaladan u baranin oo aan waxba u ahayn ama isaguna u dhashay haddii la doono uu nin kale u soo magacaabo. ninka imika gobernatooraha Buuhoodle lagu soo magacaabayo ee Hargeysa laga soo magacaabayo ma gobernatoor inoo noqonaya? jawaabku waa maya weeye. gobernatooraha Buuhoodle waa inaynu inagu magacaabana, wasiirka aynu inagu leenahay waa inaynu inagu magacaabana. war ninka la leeyahay gobernatooraha magaalada tahay oo garow waa laga soo magacaabaya, sidee buu inoo maamulaya? war inaga isnaqaana, keena xun inaga naqaana, keena tuuga inaga naqaana, keena abaabtara inaga naqaana, keena waxyaabo qabanaya inaga naqaana. inayna intaaba aqoonin kii aynu inagu diidanayn haddii dibadda laynaga soo magacaabo miyaynu yeelayn? dowladda Soomaaliya waa federaal, garow wuxuu ka mid yahay maamul goboleedyada Soomaaliya. Somaliland waxay ka mid tahay maamul goboleedyada Soomaaliya. Khaatumona waxay ka mid tahay maamul goboleedyada Soomaaliya. Khaatumo waxa samaystay oo iskale dadka deegaanada Sool, Sanaag, Cayn baa samaystay. meesha aanu taaganahay aanu ka hadlaynaana waa Cayn weeyaan. Khaatumo ayaa iskale maamul kale oo ka shaqeynaya ama ka hawlgalaya ama jooga midna ma jirto. garow laga leeyahayna ma iman karo deegaanada yada maamul laga leeyahay Somaliland ma iman karo. Khaatumo dhulkan iskale iyadaana ka talisa. waxaan mahad celinayaa saxaafadda insha Allah taala Khaatumo la shaqeysa qarban la shaqeyn baa jira xag naga kuwaas looguma jira qorshaha insha Allah waxaan ahay wasiirka warfaafinta reerkiisa baan ahay. waxaan jecel lahay inaanu saxaafadda si wacan la shaqeyno kuwa anaga naqoseeyo weeye aan si gaar ah u leenahay. insha Allah waxaan jecelahay inaan boqos ku wareysano dan oo shaqeyno kuwa aan la shaqeyn doono insha Allah waa sarki doona dileeyahay kuwa la shaqeeyo insha Allah taala waan ilaalin doonaa xaq ay leeyihiin xushmad bay naga mudan yihiin wanaag bay naga mudan yihiin. annana insha Allah taala intaan lag baan uga baahanahay. inta maraan ka soo gudbo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan joogno maanta gobolka Cayn oo ah maamul goboleedka Khaatumo gobol ka mid ah kana xun waxyaalihii ka dhacay goraato deegaankan Cayn la yiraahdo niman iskiin oo ka soo duulay gobolka la yiraahdo Puntland oo aan runtii dad la farxigaalaan laakiin xigaalnimadii ka leexday noona haya cadow aanu isayno sheeyaa lugta aan ka filanayn mawduucaas inaan uga dhaqmaan. shalay turaatay meesha dadka ka xumaaday ka saaray deegaankan aad iyo aad baan idinku hambaleynaynaa. waana wax loo baahan yahay deegaankeena inaysan ka talin cid aan maamulka Khaatumo hoos iman mas'uuliyiinta ogeyn aan la fasixin oo inaga aan ahayn inaysan soo ka shaqeyn doonin. taasina waa baaqaan iyagu jeeyn doona insha Allah taala.
waxaa kaloo jira cadowga shisheeye innagana wuxuu waxaa weeye nimanka la baxay SLM ee naga xiga xagga galbeedka nimankaas cadow baynu nahay ninba wuxuu yahay hebel waa ku soo caayay col baan nahay col baynu nimanka waxaan isku joognaa insha Allah isku celinno meel kasta ay joogaan diyaar baan u nahay xukuumad ahaan ka amni ahaan inaan ilaalino qarankeena wixii ka hor yimaada ee xun iska celinno mana u qaadan doono insha Allah ta'ala markaan taa ka gudbo waxaa jirtay dawlad aan u malaynaya inay tahay Latin America oo Cuba la yidhaahdo Cuba dadkeedu waxay u tafaxayteen oo ay ka shaqayn jireen inay noqdaan calooshooda shaqaystayaal oo la kalaystay dadka loo shaqeeya warma sidii Cuba aynu noqonnaa maynu yaallaa yeeli mayno markaan taa ka soo gudbo annagu waxaanu nahay wasaaradii amniga ee loogu talagalay dalka inay difaacaan weeraraan cadowga maxay tahay dalkaanna qorshaha iyaguna waxaa weeye inaan hore u soconno oo cadowga dalka laga saaro innagoo isla wada shaqaynayno oo bulshadu nala shaqaynayso oo xukuumaddu nala shaqaynayso oo baarlamaanku nala shaqaynayo in hore loo dhaqaaqo iminkana waxyaalo badan ayaa la qabtay oo waad ogtihiin oo ay ku dhaqaaqday wasaaradda amniga waad ogtihiin cadowgii in uu urursaday wasaaradda amniga ayaa qorshahaasi ka yimid intaa ka sokow hadaluma bixina waxaan la hadlayaa dadka maamulada hareeraha madaniga ku jira ee 24 saac gacmaynta iyo docaynta iyo dhibaatada ku haya dadka reer Khartoum ee Soomaaliya sanadiyaan waxa weeye dadka u dhashay dadka kale waxba nagala gelin wuxuu yahay maagay waayo albaanuna dadka aan u dhalan Soomaaliya sanadiyaan waxa weeye albaanuna laakiin waxa la hadlayaa dadka u dhashay Soomaaliya sanadiyaan balse hunguriga qaatay laba aflaha waxaa la yaab leh aad iyo aad la yaab leh dad laga kaleeyahay war waxaad leedahay maamulada war waxaad leedahay dad hore war waxaad leedahay dad hore dad wixii lagu kaleeyahay oo wax kale u qataagay war kuma qabanayo waxa aadan lahayn kuma qabanayo biyo gacantaada laga dhigay waxaadan lahayn kuma qabanayo war maamulkaagi baa dhisan war dawladdaadi baa qana qaaday maamulkaagi qaatay istaagay Soomaaliya la shaqaynaya war ka soo bax meelaha aad gudbiga u haday waxaa dhankooda halkaasi si wada jir uga hadlay qaar kamid ah waxgaradka deegaanka Buuhoodle waxaana ugu horeyn hadalka qaatay jiif caaqil abshir ka horeeye si wanaagsan ay u hadleen meesha wax ku jireen ay ka hadleen hadalka godolkiisa hore annaga lahayn odayna waanu ahayn xogaalla waanu ahayn dadkana de wakiil baanu ka ahayn waxa weeye waa ku kalsoonahay sidii loo hadlayna bini aadanka ilaahay abuuray waxaa ugu nasiib daran qofka daris xun yeesha haddaynu nahay Khartoum State of Somalia ilaahay daris xun buu inagu agbeeray waa Puntland iyo Somaliland haddii darisku kaa xumaado dhibaatadeeda ay leedahay waxaan uga baxayaa halkaa maanta ilaahay maadiisaynu joognaa dhulkeennii innagoo dagaalamayno oo isdifaacaynu dhisannay maanta iskuulladii waa tiro beeleen jaamacadihii waa badan yihiin iyo collegeskii oo nooc walba leh dhallinyaradeenni waa baraarugtay oo waxay u taagan yihiin naftooda inay dhisaan dalkooda difaacaan diintooda iyo sharaftooda iyo magacooda iyo jiritaankoodana ay adkaystaan si kastaba ha ahaatee kulankan lagu taageerayay dhammaystirka golaha wasiirada xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka Khartoum State ee hogaaminaya Professor Al Khalif Galayd ee ka dhacday magaalada Buuhoodle ayaa ku soo gabagabooday jawi aad u wanaagsan. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruush TV Buuhoodle.